wafdigan maanta dool soo gaaray waxa horkacayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaana kamid ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland xubnaha ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga xuduudaha Soomaaliya iyo khubaro markaasi ku xildheer arrimaha xuduudaha waxaana garoonka degmada dool Soomaaliya ku soo dhaweeyay wasiirka amniga Jubbaland wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland iyo maamulka degmada dool Soomaaliya mas'uuliyiintan ayaa waxay booqanayaan xuduuda Soomaaliya ay la leedahay dalka Kenya gaar ahaan xuduuda Barxaawo iyo Mandheera halkaasi oo maalmihii dambe uu ka jiray muran ku saabsan dhanka xuduuda ugu horeyn waxa TV-ga Jubbaland la hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo wafdigan dool ku soo dhaweeyay waxa sharaf weyn inoo ah inaan ku soo dhaweyno aniga iyo wasiirka amniga iyo xubno kale mas'uuliin ah mas'uuliinta dawladda federaalka qaybaheeda kala duwan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirro kale xildhibaano senataro saraakiil iyo wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland guddiga xuduudaha guddiga baarlamaanka iyo dhammaan mas'uuliyiinta kala socota injineerada madaxweyne soo dhawaada waxaan insha Allah ta'ala kugu soo dhaweynhayaa garoonka degmada doolow madaxweyne soo dhawow sida aadna ugu soo dhaweyso qaybaha kale ilaahay ma hadle nabad nagu keenay wafdigan ballaaran ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ka socdo dabcan dhinaca dawladda federaalka wafdiga waxa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta waxa kamid ahaa guddiga difaaca iyo u qaabilsan arrimaha gudaha baarlamaanka waxa kamid ahaa senatarada aqalka sare waxa kamid ahaa wasiirro kale dawladda federaalka socdo hoggaanka socdaalka jinsadaha guddiga xuduudaha madaxa bannaan iyo federaaleynta janano khubaro ama aqoon-yahano guddi farsamo ah ujeedada socdaalka iyagana waxay ahayd inaan booqanno magaalada xuduudda Barxaawo oo aan halka shacabkii Soomaaliyeed u deganaa iyo ayaamahan dambe xaaladihii halka ka jiray aanu dhahayaa ku soo aragno wafdiga sharafta leh ee soo dhaweeyay dadka reer doolow iyo wasiirka amniga iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo wafdigana soo dhaweeyay sharaf weyn noqonayaan meeshaan u nimaadno saado sheegteen wafdi ballaaran baan nahay ujeedada safarku sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay waxa weeye inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee la xiriirta arrimaha xuduudada meesha ka jirta iyo deegaanka la fahantiisa noloshiisa iyo amuraha meesha ka jira inaan dadka la kulanno indhahayaga ku soo aragno dadka dhageysano nimanka khubarada ah oo nala socdaan in hawshaas si farsamo ah ay u eegaan dabadeedna halkaa wixii ka soo baxa waxay noqon doontaa safar hordhaca oo xaqiiqada eegaya wixii meesha ka soo baxa dib baan ula noqonaynaa waxa laga wada hadlayaa dib baan wax ugu celinaynaa dawladdii dabadeedna labada dawladood iyo cid ay qusayso ayaa farsamooyinka looga hadlayaa intaas ayay tahay waxaan rabnaa inaan maaragtay aad baan ugu mahadinaynaa dadkana soo dhaweeyana meeshana waa booqanaynaa wax kale oo dhibi ma jiraan dadkana waxaan leenahay inta amurahaas lagu jiro oo amuraha la eegayo de wax dhibi ma jiraan gacanta lagula jiraa in la isdejiyo dalkan daris baan lanahay labadan dal oo dariskana ah oo xagga Beelaxaawo iyo xagga Deero labadaba dalkan daris baan lanahay walaalanahay waa wada noolahay wixii ina ka dhaxeeya waa ka wada hadlaynaa waqtigeeda iyo farsamada sidaan uga wada hadlaynaa marka intaas aan rabay inaan la wadaagno aad iyo aad baan u mahadsantahay Maxamed Macalin TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Jubbaland dool Soomaaliya